waad ku mahadsantihiin daawashadiina caawa muuqaalada aan idinku tala galnay runaantii waa muuqaalo majaajila ah oo kaftan iyo qosol iyo nooc walba isugu jira ma isweydiisay intii aad TikTok daawanaysay dad badan oo aad ku xidhnayd oo aad xiisayn jirtay oo meesha ka baxay oo aan gebi ahaanba ku jirin TikTok-ka bal imiga hubi qofaad ku xidhnaan jirtay oo aan isagu maanta aan TikTok-ka joogin haddaba aaladan TikTok intii ay soo baxday waxa kor isku soo qaadaya talentiga Soomaalidu ay kaga qayb qaadanayaan ay challenge noqoto haddii aftahanimo noqoto haddii hal abuurnimo noqoto dhinac walba run ahaantii haddaanu TikTok ba maanta jiri lahayn maanta Soomaali badan oo inaga qosliya ama dad badan oo faniyaba ma baynaan helnaynba maynaan ogaaninba weliba waxaa jira dad iyagu siyaabo qaldan uga qayb qaata oo dhinaca qaldan u adeegsada laakiin waxaa ka badan dhalinyarada kale ee maalin iyo habeenba soo gudbiya waxyaalo majaajila ah qosol badan iyo hooyin u gaaraba caawa haddaba muuqaalada aan idinahayo run ahaantood qosli doontaane bal aan noo sii daaya mid ka mid ah waxaa maqli jiray bini aadan oo horor ah laakiin Soomaali waxa uu imaanay baawur oo horor caadi ah Soomaali Zambi horor damashid baawurkan waay boqol qofood oo aad dilaa waxa lagu leeyahay bareega laga waay maxaa bareeg laga waana hadda ma walaabe hal bareeg ma laha dhagaxani iyo weena hostin laga gali hadhowtu waxa lagu leeyahay waa orday amar ilaahay eed baawur loo jeedo waad indhaano shanta baawur loo jeedo inoo bareeg lahayn lagu leeyahay bareeg oo leeyahay Soomaali wax dhiigooda shaqti ilaa oo keen nasiibkiina qabtiin kala fiisna laga dhigo alla yaa raxmo والله ورنتي dhagax ba loo dhigay break ba malaha markaas la oranaya dad badan buu dilay yahay muuqaalkeena kale waa xuskii dabaaldegii 18 May waa wiil isagu intuu muraaqooday ee xamaasadu ka badatay inay waqooyi calanka arkaan ma istaagan moogta ma wuxuu mooday inuu calankii hayo gabadha toobkeygina uu lulaya muuqaalkeena saddexaad waa Dhaymeerisi runaantii hadalladeeda iyo miisaankeyga iyo intadeedu iyo waxay gudbinaysaa ismalaha dhalinyaradan waxay TikTok ku dhex joogaan hadallo run ahaantii aad u qiimo badan baad dhageyso Dheeman abti maxaa kugu dhacay abti anaga dumar hadana masaakiin ayaan nahay waayo hadii aan qosolno waxaan dhahayaan idabta ayaa ku yar hadii aan oynana waxaan dhahayaan way jilicsanta oo naag adag ma ahan hadii aan hadalnana waxaan dhahayaan way carab dheerta hadii aan baxnana waxaan dhahayaan waa isla wareegto hadii aan aamusnana waxaan dhahayaan waa qof daciif ah hadii aan dumarna maxaan galabsanona ka goynaa asaaskee doonidaayo anigu dumar baana waxba maydaan galabsanin haddaad gurigeena joogtaanna dib idin gaadhi mayso dumarkana waxaanu leenahay mar walba garabkaygaa tihiin annagoo garabkiinaan nahay laakiinse waxaa qurux badan in weyl la kala lahaado waxaan ka yaabay reer waqooyigu fanka waa ku dhibayin waa ku cadaabay halka reer koonfurka ilaahay fanka u dhib yaray waxa dadka reer waqooyigu heesay tiri xul malaysa xanuuno cusub oo hadda soo socda loogu magac tiri doono waxay ku leeyihiin ma ka shaad dhilataa dhololeysa ma dambiil cishqi baa ku dhalaashay ma ilmu dardadaa dhabalkayu soo imaan dhigan waarka hilow markastoo lagu dheehda la dheegay marka aad dhahdaa igu dheeray dhakhtarkii cishqiga isma dhaafin beerka xilliga madiyo qulubtaan is dheegay dhanka waxa sadda ma yaryam soo xanuun reer koonfurka isma dhibaan waxa lagu leeyahay baby dhank lugteeda saddexaad qabso dhanka Itoobiya u jeeso faataxayso biyo sagatar baby ha waxa lagu leeyahay mutaqaana kan baby mama anilema adiku hilmaama kaleemo waa ku siiha markhuna ma ahe wala weeha haday ka jabeena haday ka khawtana waa shaleena warooqooyo fanka aad wax way dameeraha iyo dhirta iyo beeraha iyo wax way gabdhaha ku amaan jirteen iyo xayawaanada iyo fardaha meelaha daaqay iyo dameeraha wixii waa isku dhamaatay TikTok-ta hees waqooyiga lagu ninkani arkimis reer koonfurka ilaahay fanka u dhib yareeyay faraha uga qaada bilaa aad maxay ku daba dhigay